waa qaybtii saddexaad sheekadeenii taxanaha ahayd, waxayna qaybtii hore inoo maraysay Cumar oo ay laba xaaladood oo xanuun ahi qabsatay. Midi waa geeridii aabbihii Allah u naxariistee, iyo isaga oo ka soo fogaada oo soo cidleeyay xaaskiisii Caaisha muddo kooban kadib aqalgalkoodii. Sheekadiina halkeedii haynooga sii socoto. Cumar wuxuu yidhi, markii aan aabba duugtiisii ka dhammaanay, aniga waxaa kaloo murug igu haysay gacalisadayda oo aan caajis ku ogaa, aadna iiga dheerayd. Walow aan mar walba la xiriiri jiray, markiiba si degdega ayaan u laabtay. Waxaan gaaray magaalada Gaarisa. Waxaan u tegay xaaskayga oo albaabka gurigii aan ka deganayn igu sugaysa. Marxabayn xiise leh iyo soo dhoweyn kalgacal hor leh iyo waxaan la soo koobi karin ayaa dhacay. Dhanka kale, mar hadduu aabba geeriyooday, culaysyo badan iyo daaqado markii hore iga xirnaa ayaa igu soo furmay. Muddo yar kadib, gacalisadeyda waxaan u diray Muqdisho iyo inay reerkooda la joogto, anigana aan halkaygii iyo shaqadeydii Koonfur Afrika ku laabto. Waxaan u ambabaxay Koonfur Afrika anigoo dhanna ka murugaysan geeridii aabbe, inaan waayay garabkaygii, dhanka kalena ku faraxsan hadiyadda uu Rabbi ina siiyey iyo aabbe inaan mar dhow noqon rabo. Bishii 9aad sannaddii 2021 ayuu Alle inagu arsaaqay gabadheenna Axlaam. Markii aan aabba noqday, waxaa igu sii batay jacaylka aan u qaba gabadhayda yar inaan arko iyo hilowga caashaq ee aan u hayo xaaskayga. Ganacsigaygii South Africa niyad waan u hayn kari waayey, waana soo xaraashay. Ugu dambayn waxaan imid Muqdisho si aan ula noolaado curaddayda iyo xaaskayga aan ifka u jeclahay. Waxaan u soo ambabaxay Xamar Cadeey, magaalada caasimadda. Waxaan imid bishii 4aad, anigoo islahaa waad nasan, waad il qabowsan marba haddii aad u tagto gabadhaada iyo gacalisadaada. Markii aan reerkayga u tegay, wax aanan filanayn oo ama kaag iyo argagax qalbigayga ku beeray ayaa dhagahayga ku soo dhibcay. Waa tahay saaxiibayaal, qaybtanna halkaa ha inoo joogto. Waan kaaga mahadcelinayaa la socodkaaga. Waxaan rajaynayaa inaad qaybaha kale inala dhammaysan doontaan, sidoo kalena muuqaalkan aad asxaabta kale la wadaagi doontaan. Maalin wanaagsan.